haddaba waxa ayaan darro ah in mas'uuliyiin dawladeed ama xildhibaano ka tirsan golayaasha qaranku isla soo taagaan taageerada buuxda ee ay u hayaan cadowga duulaanka ku ah gobonnimada iyo midnimada dalka. difaaca gobonnimada iyo midnimada dhuleed ee dalka wuxuu qorayaa taariikh aan duugoobayn oo kala saaraysa geesiyaasha nafta u huraya dalkooda iyo cadow kalkaalka dalkiisa gumaysiga u soo horkacaya. dowladda Soomaaliyeed ku adkaysato mowqifkeeda wadaniga ah inaanan xukuumadda Itoobiya wax wada xaajo toos ah la yeelan isla markaana aysan ka mid noqon ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ilaa ay xukuumadda Abiy Ahmed si cad uga noqonayso gebi ahaanba is-afgarad ku sheegii ama wixii loo yaqaan MOU ay la gashay maamulka Muuse Biixi annagoo ah siyaasiyiinta wasiirada iyo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kuna midaysan kudlada dhambaal waxaan halkan ku soo jeedinaynaa mowqifkayaga ku aadan midnimada wadajirka iyo madaxbannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya annaga oo tixraacayna qodobada dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya gaar ahaan qodobka koowaad faqradiisa saddexaad oo cadaynaya in gobonnimada iyo midnimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya tahay lagu xadgudbaan annagoo sidoo kale ka amba qaadayna qodobka toddobaad ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo si gaar ah u waajibinaya gobonnimada midnimada geyiga Soomaaliyeed sida ku cad faqrada labaad oo qeexaysa dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa lagu xadgudbaan lamana qaybin karo annaga oo tixraacayna qodobka toddobaad ee xeer hoosaadka golaha shacabka kaasi oo waajibinaya in xubin kasta oo ka mid ah golaha shacabka marka ay xilkeeda gudanayso ay ku shaqayso sida ay danta qaranku ku jirto annaga oo ka run sheegayna dhaartii dastuuriga ahayd inaan xilka aan qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed u hayno u gudanayno si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowraynana dastuurka qaranka iyo shuruucda dalka annaga oo ka wada dheregsan duulaanka qaawan ee Itoobiya ay ku doonayso xeebaha iyo badaha Soomaaliya iyo inay rabitaankeeda ku sii joogto dalka iyadoo huwan magaca ciidamada nabad ilaalinta ee wajiga cusub ee taageerada midowga Afrika ee xasilinta Soomaaliya annaga oo cuskanayna xeerarka dawliga ah iyo qawaaniinta caalamiga ah ee UN-ta iyo AU-da ee dhowraya madaxbannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka xorta ah ee la aqoonsan yahay kana dhimbiil qaadanayna go'aankii golaha wasiirada ee xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo xeerka labada gole ee Jamhuuriyadda baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ku buriyeen is-afgarad ku sheegii dhex maray Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed isla markaana bogaadinayna baaqyadii isdaba joogga ahaa ee ka soo baxay beesha caalamka iyo dadaalada saaxiibada Soomaaliya ee ay ku garab taagan yihiin xaqa masiiriga ah ee ummadda Soomaaliyeed waxaan maanta oo taariikhdu tahay 1 September 2024 halkan ugu cadaynaynaa shacabka aan matalno waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadweynahana u sheegaynaa inaan marnaba la aqbali karin inta ka mid ah dhulka iyo biyaha Soomaaliyeed la bixiyo ama cadow lagu soo hogaamiyo sida la wada og yahay soo galitaankii ciidamada Itoobiya kadib ayay xoogaysatay argagixisada khawaarijta damaca Itoobiya ee maantana wuxuu cimri dherer iyo tamar begelinaya khawaarijta nabadiidka haddaba waxa ayaan darro ah in mas'uuliyiin dawladeed ama xildhibaano ka tirsan golayaasha qaranku isla soo taagaan taageerada buuxda ee ay u hayaan cadowga duulaanka ku ah gobonnimada iyo midnimada dalka
halganka ay ummadda Soomaaliyeed dawlad iyo shacabba ugu jiraan dib u xoreynta dalka iyo ka sifaynta argagixisada difaaca gobonnimada iyo midnimada dhuleed ee dalka wuxuu qorayaa taariikh aan duugoobayn oo kala saaraysa geesiyaasha nafta u horaya dalkooda iyo cadow kalkaalka dalkiisa gumaysiga u soo horkacaya waxaan haddaba xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaynaa kow inay si degdeg ah dawladda federaalka uga hawlgasho dhammaan geyga Soomaaliyeed si loo dhowro gobonnimada madax bannaanida dhuleed ee dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo si gaar ah mudnaanta loo siinayo meelaha cadowga Itoobiya uu duulaanka ku yahay lagana xoreynayo shacabka go'doonka ugu jira cabsida argagixisada iyo ciidamada Itoobiya ee ku cimri dheeraysanaya inay ku dheefsadaan dhibaatada khawaarijtu ku hayso in goobaha ay ciidamada shisheeye banaynayaan la geeyo ciidan Soomaaliyeed oo hanan kara nabadgelyada iyo difaaca deegaanadaasi isla markaana ka qayb qaadan kara dadaalada dib u xoreynta dalka ee laga cirib tirayo nabaddiidka argagixisada in la xoojiyo kacdoonka shacabka ee difaaca iyo dib u xoreynta gobolada dalka ay weli argagixisadu ku sii harsan tahay si isku duubni wadajir iyo wadanadii ku dheehan tahay iyadoo lala kaashanayo dhammaan saaxiibada Soomaaliya in dawladda Soomaaliyeed ku adkaysato mowqifkeeda wadaniga inaan xukuumadda Itoobiya wax wada xaajo toos ah la yeelan isla markaana aysan ka mid noqon ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ilaa ay xukuumadda Abiy Ahmed si cad uga noqonayso gebi ahaanba is-afgarad ku sheegii ama wixii loo yaqaanay MOU ay la gashay maamulka Muuse Biixi una hoggaansamayso xeerarka caalamiga in cid kasta oo marxaladda adag ee dalku marayo caadaysata ku xadgudubka midnimada iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagu soo oogo dacwad si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka haddii aysan ku soo noqon caqliga saliimka ah iyo sharciga ama iska bari yeelin mowqifkooda qaldan ma jirto gunnimo ka xun inaad dalkaaga iyo dadkaaga gumaysi u gacan geliso ugu dambayn waxaan golayaasha qaranka iyo waxgaradka Soomaaliyeed ugu yeedhaynaa inay u midoobaan dhowrista qarannimada iyo difaaca karaamadooda diintooda iyo dalkooda meelna iska dhigaan khilaafka gudaha iyo kala aragti duwanaanta siyaasadeed xilliyadan adag ee taariikhda dalkeena wabillahi tawfiiq runtii wax aan marna ka tarjamaynin ee baahida maanta jirta marna aan xiisan loo qabin in dad waaweyn oo mas'uuliyiin ah idaacadaha inta is soo hortaagaan ay maanta ka bogaadiyaan ama ay ka sheegaan inay taageersan yihiin ee dawladda Itoobiya iyo inay dalkeena ku soo xadgudub runtii dadka saaxiibadeena ah xildhibaanada ah ee runtii maradu ka dhacday ama aan ku hadlay waxaan munaasab u ahayn maanta dadka ee dalka Soomaaliyeed waxaan ugu yeeraynaa inay caqliga u soo noqdaan inay u soo noqdaan xikmadda inay u soo noqdaan ilaalinta iyo dhowrista mas'uuliyadda ka saaran dadkooda iyo dalkooda waxaa maanta isugu yimid halkan xubno ka tirsan labada gole oo ku boobay magaca kutalada dhambaal oo runtii waqti dheer ka yeeshay dood iyo falanqeyn adag xaaladda dalku uu maraayo iyo waxyaabihii ugu dambeeyay oo soo kordhay saan ognahay dalkeenu wuxuu marayaa marxalad aad iyo aad xasaas u ah waxaynu ku jirnaa xilli aan aad iyo aad ugu baahannahay iskaashi iyo midnimo xilli aan aad iyo aad ugu baahannahay wadajir iyo wada shaqayn waxaa marka sida aad ka maqlayseen bayaankeenna nuxurkiisu waa in marka hore runtii aan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan runtii u muujinno inaan ka xunnahay wixii shalay dhagahooda ku soo dhacay oo khaladka ahay waxaasoo aan runtii marnaba ka tarjamaynin ujeedooyinka iyo aragtiyada runtii la jaan qaadaya marxaladda dalkeena iyo dadkeenu ay marayaan maanta waxaasoo runtii aan ka tarjamaynin aragtiyada sharafta leh
oo qiimaha badan oo ay xambaarsan yihiin mudanayaasha labada gole waxaan leenahay waxaas dhagihiina ku soo dhacay ka raalli ahaada